waa qiso aad u qurux badan baleeg sawirkan ku muuqda waxaa lagu magacaabaa xaqiiqdii qaawanayd ama xaqiiqdii ceelka ku jirtay waxaa sawiray sawiraaga lagu magacaabi jiray Jean Leon sanadku markuu ahaa 1892 isagoo ka sheekeynaya beenta sidii ay u faaftay qarnigii 19aad sheekada sawirka sidaan buu u qoray mudane Leon maalmaha ka mid ah waxaa kulmay been iyo xaqiiqo been ayaa xaqiiqo ku tiri maanta jawigu waa mid degan oo aad u qurux badan xaqiiqdii waxay eegtay geesaheeda iyada oo shakisan samada ay misana eegtay waxayna ogaatay in jawigu uu yahay mid fiican sidoo beentu sheegtay waxayna go'aansatay in ay la soo tamaslayso been maalinta inta ka harsan in cabaar ah markii ay wada socdeen waxay arkeen ceel biyood kadibna sakadiisa baa been u tiri alla biyaha ceelka ku jira oo kuwa wanaagsan ina kici aynu hoos ugu daadegin ceelka markale ay xaqiiqdii si shaki qab ah u fiirsay beentii gacanta ayna biyaha gelisay waxayna ogaatay in ay yihiin kuwa wanaagsan intaas kadib waxay siibteen dharkii waxayna galeen biyihii ceelka ku jiray kadib maxaa dhacay sakadiisa baa been waxay uga soo baxday ceelkii waxayna xiratay dharkii xaqiiqda si dhaqso ahna goobtii way isaga carartay xaqiiqdii waxay ka soo baxday ceelkii iyada oo qaawan caran ay ka muuqato waxayna daba carartay beentii iyada oo rabta inay dharkeedii kala soo harto dadkii markii ay arkeen xaqiiqdii oo qaawan waa ay wada xanaaqeen wayna ka wada jeesteen laakiin xaqiiqdii maskiinta ahayd waxay isaga laabatay ceelkeedii sidaa bayna ku qarsoontay oo aan dib dambe loo arag maalintaas kadib dunida waxaa qabsatay beentii oo xiran marihii xaqiiqda dadkuna waxay noqdeen kuwa isdiidsiiya inay arkaan xaqiiqda oo qaawan mahadsanideen